hadda taalla iyo tii hore siday ku yimaadeen iyo waxay ku kala duwan yihiin waxaan rabaa hadda qudhaydu waa meel kalan u baxaya hadda shir kala tagaya inaan xoogaa ku soo gabagabeeyo dadku waxay ku wareersan yihiin siday doorashadu u dhacaysaa haddaba halkay ka dhici kartaa meelaha la haystaa magaalooyinku ma wada firiyaha marka sidee bay ku dhici doontaa talada annaga aan isla eegnay markaanu in badan ka doodaynay helay waxay noqotay haddii doorashadan maanta lagu guulaysto tan hadda taalla oo aan doorasho dhici doonin sida loo sheegay tan hadda taalla doorasho ma dhacayso waxaa la yidhi dib uma dhici karto doorashadu waa koow waxaa la yidhi oo sharciga doorashooyinka ku taalla xisbiyadu waa inay dadka ay soo sharaxayaan gudbiyaan 6 bilood ka hor waqtiga doorashada oo November baarlamaanka kala tagaya December baa la qaban doonaa hadday sidaa u dhacdo 6 bilood hadda 7 bilood baa haray meel la asteeyay iyo kursi meel la geynayay ilaa hadda lagama shaqaynin lama tagi karo qabaa'ilku kuma heshiinin jifadan miyaa iska lahaanaysa sida loo leeyahay mise jifooyinka oo dhan raalli ka yihiin kuwii barakacayaasha banaadir kuwaas oo dhan raalli ma ka yihiin inay sidaa kaga maqnaadaan siyaasadda haddana 4 sano kale waxaasoo dhan baa yaalla meesha marka sida loo sheegayo waa run doorasho tan kuma dhici karaysoba laakiin goormay dhici marka hadday doorasho dhici weydana waddanku wuxuu gelayaa burbur hor loo kale Afghanistan bari dhaweyd oo 2 bilood laga joogo doorasho ka dhacday doorashada iyadoo dhacaysa oo codka lagu ridayaa 10 qarax dhaceen waa nooca dawladaha burburan doorashada nooca laga dooray ahayd waa doorteen waxay yiraahdeen haday la joojino doorashada cadawga xoogaysanaya waxay noqonaysaa burbur marka doorasho waa inay dhacdaa si loo socdo si loo arko waddankan inuu hore u socdo qadab kale oo yarna aan ku daro doorashadan inaga muhiim waxay inoogu tahay inay dhacdo waxay muhiim inoogu tahay hadda Afrika way qaybsantay Afrika waa la qaybiyay 4 qaybood 5 qaybood baa loo qaybiyay bishan July soo socota Afrika waxa geeska Afrika iyo la israaciyay bariga Afrika waxa la isu furayaa tareenadii dariiqyadii qorshe dheer baa jira oo Afrika intay toostay waxay tiri no more Europe dambe oo aan intaan kakawga waxa la yiraahdaa intaan Gaana iyo dhulka laga guraa isagoo chocolate dib looga iibiyaa ironka inta la qaada isagoo steel la keena tii shaaha Ethiopia iyo Kenya iyo inta la qaado iyadoo English tii la yiraahdo dib loogu keena marka waxay yiraahdeen maya waxa iyaga annaga waxaan nahay Afrika waa billion iyo 700 milyan oo qof annaga waxa iyaga ku filaynaan iska iibino kaliya waxaan u baahanahay dekado dariiqyo tareeno geeska Afrika waxa ka yimaada West Africa wuxuu ka iiban karaa waxa ka baxa inaga waxaynu haysanaa 8 milyan oo hektaar oo dhul oo bannaan Afrika oo dhan baa cunto u baahan billion iyo 700 milyan baa u baahan cunto intaynu dabadda bariiska Brazil ka keenay digaaga ka keenayna Brazil oo chickenka ka keenayna China iyo yani waxa soo dham inagoo biyaheena badda ku qulqulayaan Afrika oo dhanna inoo baahantay ayaan haddana ka baahanahay marka waxyaalahaas oo dhan waxa inaga hor jooga doorasho haddii East Africa Community July baa la isu furayaa viisayaasha dariiqyada hadiya jeer waxay isweydiinayaan xeebta Afrika u dheer Soomaaliya leh dekedeedana kama maarano Rwanda kala samaysatay waxa la yiraahdaa dry dock oo ay ka iibiso cuntada iyo raashinka iyo qalabka waxa meel walba ka keento Afrikada kale ee ku wareegsan yeela galbeedka Tanzania iyo Arusha waxay ka soo dejiyaan Dar es Salaam iyo Mombasa oo ku filayn dekada ahaan oo cidhiidhi noqday hadda waa Djibouti waa aragtana way boobsisay dekada shan ay samaysatay Kenya Lamu bay samay inaga maxay nahayaa intaan isku jeedno aynu ku jirno 4.5 iyo ma yeelayno daan hayno waa laynoo baahan yahay Afrika waa inoo baahan tahay wax galeedayna u baahan tahay sisinta u baahan tahay waxay sokor baynu beeri karnaa beeraheena loo baahan yahay dhulkeena iyo biyaheena loo baahan yahay dekedaheena loo baahan yahay doorasho conditionka koobaad waa doorasho inaynu galno si aynu mid uga noqono marka intii kala horeba loo wada dhimay anigu waxaan qabaa personally hal la gala doorashada ilaahay baa hayad qof walba naftiisa waa qoran tahay wixii qarax ku dhimanaya ku dhintaan laakiin doorasho aan galno si aynu caalamka uga mid noqono
okay doorasho sidee lagu geli karaa marka tan kale noocan la diidan yahay ee nabadda ee fiican ee corruption ka lahayn way lagu geli karaa doorasho guddiga doorashadu waxay yidhahdeen 6 bilood haddii naloo qabto annagu waa doorashada waa geli karaynaa tan kale saan idiin sheegay lagama gaadho waxaa la yidhi 6 bilood ka hor waa in la qadimaa meeshiina weli waxba lagama qaban marka horta tan iyadaaba automatically dib u dhiridaysa okay tan halkee laga qaban karaa marka berigii dhaweyd 2016 waxaa laga qabtay dawlad goboleedyada caasimadahooda iyo xamar iminka waxaa laga dhigi karaa masalan dawlad goboleedyada shanta ah min 3 magaalo waaweyn baydhabo xudur iyo afgooyo kale cadaado dhuusamareeb iyo hubyo oo kale waxaa laga dhigi karaa garowe iyo 2 magaalo kale ama boosaaso qardho xaggan waxaa laga dhigi karaa jowhar beledweyne iyo buulaburde iyo muqdisho oo 17keeda gobol district laga dhigi karo double meelahaas oo dhan waa nabad dhowr milyan baa codayn kara waa doorasho fudud waa doorasho sahlan waa mid la qaban karo musuqmaasuq male qof waliba xaqiisu helaya labada doorasho waxaasay ku kala duwan yihiin midna lama dhigi karo waa run midna waa la qaban karaa marka sidaas doorashada lagu qaban karaa mana biciidsado marka la yiraahdo lama qaban karo waayo lama qaban karo marka la qaldaayo ee wax qaldan la isku dhex daray of course lama qaban karo laakiin marka saxda alla qaato waa la qaban karaa waa mahadsantihiin aniga